الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي في العقيدة، درسكeennu caawa wuxuu ku saabsiisan yahay الدعوة mas-uuliyة man. dacwada islaamiga ah iyo in dadka la gaadhsiiyo islaamkii xagga alle ka yimi waa mas-uuliyadda kuma, ama yaa laga rabaa mas-uuliyadda inay qaadaan. ma mas-uuliyo bulshada muslimka oo dhan laga rabo, kullun calaa xasabi qudrati wa taaqatih, laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha, laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha. ma mas-uuliyo qof walba oo muslima laga rababaa, iyadoo loo eegayo qof walba xasaba qudratih, ama tamartiisu intay leegtay iyo daaqad iyo awoodda alla siiyey inta ay leeg tahay iyo aqoonta iyo garashaduu haystaa intay leegtayba, mise waa mas-uuliyad laga rabo koox gaara oo sifo gaara leh oo iyagun bes ku ahba. iyadoo duduuban waxaynu leenahay waa mas-uuliyo laga rabo qof kasta oo muslima, maadaama uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabadiisii oo dhan calala qalamayntii ugu badnayd ay joogto oo uu la wada hadlayo, oo mid baadiye ka yimi iyo mid magaalo ka yimi, mid caalima iyo mid dhowaan soo islaamay, mid wax badan garanaya mid in yar garanayaba joogaan, ayuu wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, balliquu cannii walow aaya, iga gaadhsiiya dadka aayadna ha noqotee. waa mafhuum wakhtiyadan dambe gaabiyey oo dadka in badanoo ka midii ka gaabisay, ama laysku halleeyey oo in badanoo ka midii is idhaahdeen cid kalea mas-uuliyadani saaran tahay. waa mas-uuliyad haddii dadku xilkeeda wada qaadi lahaa siday muslimiintii hore u wada qaadeen fududaan lahayd. walidaalik waxaan rabaa bacdi nuqaad ama qaybo yaryar inaan idiin soo guuriyo, oo maalan axad ducaat cabdilwahaab aلطurayri mawduucu qoro la yidhaahdo alcamal liddiin mas-uuliyat اljamiic ayaynu muqhtatafaad ka qaadan doonaa. waxau tilmaamayaa kow in islaamka loo shaqeeyo waa qariinu اlintimaa'i ilayhi buu leeyahy. waa wax ku xidhan inaad ka tahay uun, yacni caqdi dheeraad oo kale uma baahna. xambaarista dacwadan la qaadaya waxay ku xidhan tahay inaad islaamka muntami ku tahay, inaad ka tirsan tahay, inaad qof muslima tahay oo qura. waxay ahayd buu leeyahay caqiidadaasi mid caqligii dadkii hore muslimiintaha si cad ugu taalla, mid aan shaki iyo murantoona kaga jirin, kuwooda jinka ah iyo kuwooda insiga aba. waxay ahayd mas-uuliye uu dareemo qofka muslimkii bimujarad marka uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bayca la galo. amhila aan qaadana min ataariikh waxuu sheekhu keenay iyo waxaynu ku darrabaa. almithaal alawal waa qisa طufayl ibnu camar addawsiy. saxaabigaasi la odhan jiray طufayl ibnu camar addawsi, qabiiladiisa oday u ahaaya, nin gabyaaya ahay oo xikmad badan, ayaa iska soo cimro tegey. dabeetana wuxuu maka ku soo beegmay wakhti
siyaaj iclaami uu ka jiro cunaqabatayn aan idhaahdo xooggan oo xagga miidiya ah ee ay haysata nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku guulaysteen nimankii quraysheed inay dadka ka dhaadhiciyaan inuu nin ama sixiroola ama khatari uu joogo oo loo baahan yahay qofku inaanu hadal ka maqlin maaha inaanu raacin waa inaan codkiisu ku soo gaadhin tufayl ibn alcamr addawsi oo nin weyna oo odaya oo reer u talin jiray oo gabayaaya oo la yaqaanaa wuxuu leeyahy warkii siday igu akhrinayeen waxay gaadhsiiyeen inuu dhagaha fura soo gashado codbi intuu goosto inuu labada dhagood fureeyo isleeyahy bilaaba a iska soo horbaxdaan yaad codkiisa maqlin inuu u tegayo ama uu socdo ama caynkaase waa haddiiba coaccidental si uuna hayru caadi a isuga soo horbaxdaan yaydan codkiinu isku soo iyo codkiisa aad maqlin wuxuu leeyahy markii aan meeshii yimi haddana wuxuun baan rumaystay war nin weyn oo caqli labaatee maxaa furtan dhagaha kaa geliyey nin weyn oo waxa xun iyo waxa san kala garanaya nin weyn oo gabayga iyo kahaanada iyo warka dadka kala saari karaya maxaa dhagaa kuu fureeyey furtaan iska tuuray buu yidhi dabeetana intaan u tegay baan ku yidhi buu yidhi bal waxaad adigu hayso ee dadka u sheegaysa ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii buu soo bandhigay wuu islaamay bimujarad inuu islaamay oo ah inuu fahmo islaamnimada iyo waxay xambaarsantahy oo ah inuu ashahaato ayuu wuxuu qaatay go-aanka ah mas-uuliyaddu saarantay isaguna maanta laga bilaabo inuu diintan dadka ugu yeedho cilmiguu bartay waa intaa yar uu nebi moxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu nebiga ka codsaday ama ka warsadayba in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu alla u baryo tolkiibuu ku noqonaya ayayn diinta tolkii aqbalaan tufayl ibni camr idawsi dib buu u laabtay tolkiibuu u tegey diintuu ugu yeedhay waa la hadlay meedhadhi yar mooyaan waa laga dhaga adaygay waa la maqli waayey markii la maqli waayey muus odhan dee wataa cidi kaa dhegaysan weyday adigu xilkiina gudatay waajibkiiska riday cidina kaa dhegaysan weyday ee waa qof muslim oo sida hamiga diinta tan iyo inuu cid gaadhsiiyo aan ku qanacsanayn mujarad in la diidayo qura isagoo cabanayuu nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow reer dows gaalnimadii waa ku madax adeygeen iyo ay wadeen imaqli waaye ilaahay u bari ina ilaahay bele ku soo dejiyo habaar dadka diiday inay wax islaam dhegaystaan habaar xadiiska bukhaari siduu sheegaya saxiixaynkaba ku yaala bukhaari iyo muslimba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma hdi dawsan waati bihim halkii laga sugayay inuu habaaro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaw reer dows oo hanuuni iyagoo muslimana ay yimaadaan waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku noqday isagoo weli dareenkii qaba oo dacwaddiisii wada culamaai taarikh waxay yidhahdaan 78 qoys isagoo wata ayuu markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo soo wada islaamay ragguu wato yaa ka mid ah diinta alla inugu anfacayba kuwiina soo gaadhsiiyey abaa hurayre soo ma maqashaan abaa hurayra waa min qabiilati daws waa dawsi abaa ka mida ragguu keensaday tufayl bni camr dawsi dadkuu diinta gaadhsiiyey bimujarad inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu wuxuu xambaaray hamiga ah inuu diintan qaado oo uu cid kalen gaadhsiiyo su-aasha isweydiinta le waxa weyaan inagu imisaynu diinta ku jirray imisaynu se gaadhsiinay intaad muslim ahay intaynu diinta tan haysanay intaynu hamiga kan xambaarnay intaynu dad diin ugu yeedhnoo gaadhsiinay saxiixeynka waxaa ku soo arooray qisatu abi dar alghifaariy saxaabigii la odhan jiray laba xadiid oo midna bukhaari iyo muslimba wada warinayaan oo ibn cabaas leeyay midna muslim keligii warinayo oo bacdi nuqaad ikhtilaaf uu ka jiro jamcintoodana aanay fududayn si kastaba ha ahaatee haddaynu intaynu inagu uga dan leenay soo qaadanay ka ku yaala bukhaari iyo muslimba abi dar alghifaari nin xaq raadinayuu ahaa akhiiran wuxuu yimi magaaladii maka ahayd
isagoo fii dannisu isagu u malaynayo sheeganaya inuu yahay rubcu lislaam fii waqti isagu fii xuduudi cilmi bay culammadu ku fasiraan inay ahayd laakiin dad kaloo iyana sheeganayaa jira waayo waxay ahayd cahdi dadka muslimiinta ahay la cadaadinayo oo wax waliba ay qarsoon yihiin oo dadka u yimaada nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu islaamnimada u laqino uu yidhaahdo tolkaa iskaga noqo oo markaad maqashaan inaan guulaystay ii kaalaya abidar wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubculislaama buu leeyahay islaamkaba kii afreeya saddex xun iga horraysaba abidar alkhifaariy magaalada maka buu soo galay maka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay qof islaam sheegan karaa aanu jirin oo cidi ku dhawaaqaynin magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusan riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan cidna waxmaan weydiin buu leeyahay dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yidhi mid dadka ka mid aan siri buu yidhi kaasi waa iska daciif waxna ma oge kaa haddaad iska weydiiso tidhaahdo war ninka saabiga ah ninka diinta cusub sheegaya xagguu joogaa malaa waa iska kaaxil qarinaya midaan yaro daciifsaday buu yidhi markii dambe ku yidhi buu yidhi ka saabiga maxamed xagguu jooga waaba igu qayliyey buu yidhi kiina kor buu qayliyey hada saabi hada bal kan diintii ka baxay ee caynka waaba lagu soo xumo waa la tumay bimujarad inuu cid weydiiyey xagguga laga helayaa ayaa lagu tumay sidii loo garaacayay buu cabbaas soo gaadhay dabeetana wuxuu ku yidhi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan war ninkani waa nin khifaara khifaar waa qabiilooyinkii dhaca iyo bocaan baxay isla markaasi waa nin qabiilkiisa ay yaalliin waddada ay qurayshi safaradooda mariyaan safarka shaam marka lagu socdo waddada la maro qabiilkiisa degan quraysh mantaqii ay fahmaysay buu cabbaas kula hadloo ah hadda kama idan maarmin buu leeyahay shaam inaa u safartaan ninkaa tumaysaana waa nin bani khifaar ah markaasaa layga foqay buu yidhi oo gacanta layga qaaday riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaanta saxiixaynka waxay sheegaysaa meesha isagoo iska fadhiya inuu soo maray cali ibni abi aalib oo nin yari uu arkay ninkan qariibkaee meesha iska fadhiya ee iska qariibnimadu ka muuqato markaas ku yidhi mala maad inakeen waa iska dabagalay maana wada hadal buu yidhi gurigii buu geeyey habeenkii buu marti sooray subaxii buu alaabtiisi iyo wixii qarbadkii yaraaya intii uu biyaha ku sitayey wixiisii buu iskala soo noqday abidarmaga wuxuu ku soo noqday makadiisii beytkii meeshii aniga sabkii dambu haddana cali soo maray ninkii oo war weli miyaad helin buu yidhi ciddii aad daydayaysay inakeen waa kaxeeyey habeenkii labaadna waa casuumay waa soo noqday habeen saddexaadkiiba haddana ninkii arko cidlada iska fadhiya calaa haddana casuumay markii dambe wuxuu ku yidhi miyaad ciddaad u helisiyo waxba toona helinoo waxaan rabo aan ku weydiinaya ii ballanqaad buu yidhi inaad qarinayso waa kuu qarinayaa buu yidhi waxaan doonayaa buu yidhi ninka diinta cusub la yimi iyo caynkaasiya soo dabagal buu yidhi halkaan ku socdo weeyaane waxaan ka shakiya haddaad arka buu ku yidhi riwaayadka qaarkood waxay leeyiin wuxuu yidhi sidii nin biyo qubayaan iska dhigayaa markaa faham meeshu waa minaysantahay isku imanin riwaayadka qaarkoodna wuxuu odhanayaa kabahaan hagaajisanaya haddaad aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya waa ma hagaagsane saa ogow sidii baan ku dabagalay buu yidhi waa laba nin oo isdaba socda oo hura wada socda oo qarsoodigu uu gaadhsiisan yahay inaanu sheegan karin meeshay ku wada socdaan kadibna astaantii iyo waxbuu tusay sidii buu ugu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aalihii waday weydiiyey xadiidka waa soo koobaynaa maxalu shaahidkaynu soconnaa maxalu shaahidka waxa weeyaan wuu islaamay markuu islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guulaystay unina u yimaadaan waayo nimaa qariiba oo aan u dhalan magaalada oo caynkana dacwadda culaysunbuu kuyo cidima ilaalin karayso wuxu uhi waan noqonayaa laakiin wuxuu dareensan yahay dacwaddan mas-uuliyaddeeda inuu la asrakhanna biha waa ku dhawaaqi doonaa buu yidhi quraysh dhexdeedaan kaga sii dhawaaqi doonaa dib buu soo laabtay dabeetana intuu maka is dhex taago ashhadu an laa meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayay ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahaada kala dabeetana waa lagu boobay dagaalkii cabbaas ba haddana ku soo baxay waa ninkan aad tumaysa waa nin reer khafaari miidan garan waka waa laga tegay tegi maayo buu yidhi la asrakhanna biha waa ku dhawaaqaya maalin saddexaad dib oo haddana
kaga dhex dhawaaqay sidii oo kalea loo tumo haddana cabaaskii baa loo bixiye u ka tegey yacni bimujarad inuu islaamay ayuu wuxuu dareemayaa dacwadan in mas-uuliyadi ka saarantahay walow lagu dilayo ama naftiisa dhibi ka soo gaadhayso ama mushkilada ka soo gaadhayso ay rakhiis la tahy wuxuu arkayaa amaanatun calaa caatiqihi inay tahay inuu dadkan kelimatu tawxiid ugu yeedho mahma kaanat iduruuf ama hala dila ama hala daayo ama wixii la doona hala sameeye intuu dacwo gaadhsiin kara ama diin gaadhsiin kara inuu gaadhsiiyo waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinaya baaro diinta tan inuu dadka u sheego haddaynu qiso saddexaad saxiixu muslimka ku taalla soo qaadano damaad alasdi saxaabigaasi war badan baa soo gaadho sheegaya iclaamkii dee meesha lagu haystay ee dadka la khuuqiyey nebi maxamed inuu nin waalan yahay oo jiman iyo waxuun galeen ama balaayo kaluun haleeshay oo qof derderan oo waxu yaro dhiman yihiin inuu yahay waxaan u imi buu yidhi kollayba ma ka gaadhaye bal ninkaa intaad raadiso waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay waxbuu tuftufi jiray aad bal waxoogaa ku akridid qoladii fii zaman aljaahiliya jibankan iyo waxaan ilaa weligeedba waxbaa lagu tufi jiray mid saxa iyo mid qaladaba kiniisaddaa ku tufto muslimkaa ku tufo qaar kalea ku tufo waa loo fooxiyaa waxaan is idhi buu yidhi bal waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay aad waxoogaa ku waa soo raadiceeyo waanu imi buu yidhi waxaan ku idhi buu yidhi aniyo waxaan maqlay in xanuunku hayo dee waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufee maxay kula tahy waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iclaamku markuu wax buunbuuniyo siduu bini aadamka u bedelo ninkii dadba ugu caqli badnaa ilaahayba basharka ka dhex doortay rasuul iyo nebi ahaa ummaddan dhan loo soo diray ayaa iclaamku dadka wuxuu ka dhaadhicinaya inuu nin waalan yahay inuu nin waalan yaho waxu dhiman yihiin kadib markaanu imi buu yidhi waxaan idhi buu yidhi waxaan maqlay in dee xanuunku soo gaadhay waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufo nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbat alxaaj ayuu akhriyay baa la yidhahdaa in alxamda lilahi naxmadu wanastaciinuh khudbadaasuu akhriyey man yahdi illaahu falaa haadiya lah falaa mudila lah waman yudlilu falaa haadiya khudbadaasuu nebigu akhriyay calayhi salaam biriwaayaatiha almukhtalifa axaadiista qaarkood xamdale iyo intaas axaadiista qaarkood waa ka yara dheerayaan naska saxiixu muslim uu ka gaaban yahay ama dhammee ama gaabe adigu saa doontaba bal nusuusta isugu duduwo khudbat alxaaj ayuu nebigu ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi markaasuu ugu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi mar saddexaad buu ugu celiyey wuxuu yidhi anigu gabayaa waan arkay oo sixroolo waan maqlay oo kaahin waan maqlay oo kan waan maqlay waa warkanaad sheegaysaa intaa midna uma eka dee nin waalan haddaad hadal saddex goor tidhahda ku celi buu ku derderi lahaa marka hore markuu wax kuu sheego nin waalan haddaad tidhaha ku celi wax kaloo haddana akhrii lahaa dee mar labaadka haddaad tidhaha ku celi wax kaluu sheegi lahaa waxaa muuqataa ninkani nin waalan inaan ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo muuqda waxaanuu ka hadlayaa khudbat alxaaj waa tawxiid iyo xamdale iyo istikfaar iyo tashahud wuxuu ka warramayaa inay tahay mantiqii dacwada islaamigaaba wixii uu dadka ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa kullin meeshaan u socdaa waxa weeyaan wuu islaama damaamkii rabay inuu wax ku tufo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu islaamay markuu islaamay ayuu wuxuu ku yidhi keen gacanta baycan kula gelaya heshiis baan kugula gelayahay waa islaamkaan qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiska la galay buu wuxuu ku yidhi wa calaa qawmik keligaa ma rabo dalkaana heshiis ugula gal waa ninka hadda islaamay ayaa laga rabaa dacwaddaa inuu xambaaro oo qabiilkiisii intuu u tago inuu isagu diin gaadhsiiyo ninkaa hadda islaamay ayaa la rabaa inuu xambaaro diinta tana uu gaadhsiiyo tolkii oo uu nebigu rabaa inuu heshiis hadda kula galo calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi wa calaa qawmi naftayda iyo tolkayba labadaba waa kugula gelaya tolkiina wuu gaadhsiiyey diintii yacni waxay ahayd dacwadda islaamigu fii cahdi asaxaaba oo fii jiili muslimiintiiyo koowaad wax la mida qariinu ila alislaam qofku inuu islaamnimada qaatay oo uu muslim noqday ayaa waxay ku fillayd inuu daaci yahay inuu diinta soo galay ayaa waxay ku fillayd inuu daaciyey kuwa aynan arkayninna qur-aankaa saasoo kale inooga sheegay
yani saxaabadii la arkayay bidhaantooda la yaqaanay iyagaa ka warramay axaadiistaa soo aroorisay iyagaa uga warramay ibnu cabaas baa inaga warramaya abidar siduu islaamay ama طufayl ibnu camar addawsi baa ducooyinkiisa iyo baryadu nebiga wuxuu weydiisanaya axaadiista bukhaari ka warramaysa ama damaad baa waxaa ka warramaya saxiixu muslim yani axaadiistoodii iyaga waa lasoo naqliyey nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam jin iyo insiba waa loo soo diray xataa jinkii rumeeyey dariiqadan buu isna maray jinku inay dariiqadan mareen iyaga axaadiis saxaaba inagu soo warisay ma jirto laakiin rabu samaawaati waalardi baa ka warramay iyana ka warramaya inay baabkan u wadeen saa daraaddeed baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'an falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaq waila طariiqi mustaqiim ya qowmana ajiibuu daaciya allahi waaminuu bih yagfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaciya allah aayaadkaasi fii suurati alaxqaaf gabagabadeeda ku jira rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyay waid sarafnaa ilayka nafara min waxaad xustaa nebi maxamed oo dadka uga warantaa markaanu xaggaaga u soo weecinnay koox jinka ka mid ah oo ay ku dhegaysteen baa ilaahay leeyo qur-aanka ay dhegaysteen markii ay qur-aanka maqleenna warbal aamusa bay idhaahdeen aamusa falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu fiican u fahamna warkuu sheegaye markay aamuseenay dhegaysteen qur-aankeena falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin baa ilaha yidhi nebi maxamed markuu qur-aanka dhammeeyey iyana ducaad bay ahaayeen waxay bilaabeen inay tolkood u yeedhaan baa la yidhi subxaana wa tacaala yani qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa bimujarad inay qur-aan dhegaysteen oo islaameen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen inay dareemeen mas-uuliyadda in dacwadan iyagana saaran tahay inay xambaaraan markaaba oo cidda ka dambaysa cilmi intee laga bay barteen waxaa la sheeguun inay aamusays yidhahdeen oo qur-aan dhegaysteen intaasay barteen tii qur-aankii uu nebigu akrinaya calayhi salaatu wasalaam ayay barteen kadibna way laabteen waxay la laabteen wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wa ilaa طariiqi mustaqiim kayow bay yidhahdeen waxaanu soo maqalnay kitaab la soo dejiyey muuse gadaashi oo wixii muuse uu wadayna rumaynaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan yaa qowmanaa ajiibuu daaciya allah tolkayow maqla ilaahay subxaanah wa tacaala kan diintiisa dadka ugu yeedhaya wa aaminuu bihi yakfir lakum allana rumeeya subxaanah wa tacaala iyo rasuulkiisaba ilahay baa dembigiina dhaafayo cadaabka idinka dhow yani waxaan u daliishanaynaa un inaan fahamno haddaynu insigii saxaabada a fahamnay saxaabadii jinka ahaydna ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka dhegaysatayna inay mas-uuliyaddaa xambaareen bimujarad inay qur-aanka maqleen waxaa kaloo sheikhu uu naqlinaya uu leeyay addiin alcamal liddiin waa wadiifat alcumr inaynu islaamka u shaqayn baarno maalin iyo laba maaha waa shaqadii laynooga baahan yahay intaynu noollay oo dhan cimrigeen oo dhan shaqadii la rabay inaynu fulino weeyaan sida awgeed ma aha wax waqti ku kooban ama makaan ku kooban bal aan eegna siiradii ambiyada qur-aanka ilaahay kaga warramayo iyo kuwii raacay ee nebiyada la socday nebi nuux baa ilaahay wuxuu inooga warramaya barnaamijkiisii dacawiga ahaa iyo siduu dadka ugu yeedhayay nebi nuux ilaahay wuxuu ka tilmaamaya inuu yidhi inii dacawtu qawmii laylan wa nahaara ilaahay ow tolkay ama dadkayga waxaan u yeedhay maalin iyo habeenba shaqadatan ama brogramkaygu wuxuu ahaa wakhtiga la qabanaya habeen iyo maalinba wakhti aan dacwo ka fadhiistay ma jirin buu tilmaamaya nebiga caynkaa u dhawaaqaya maxay jawaabtu ahayd ay ula yimaadeen falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara wainii kulamaa dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastakshaw hiyaabahum wasaruu wastakbaruu istikbaara ilaahw yeedhmadaydiina firdhashun bay usii kordhisay buu leeyay mar kastoo aan ugu yeedho diinta ilaahay iyo ilaahay dembi dhaaf inay weydiistaanba
dhagahabay furaystaan oo farahay dhegta geliyaan oo ma rabaan inay maqlaan oo iska kay duuduubaan oo isweyneeyaan oo kibraan oo yacni dheg lay mar dhaadhiciya buu leeyahay qofka bini aadamka inta badan hadduu la kulmo dhaga adayga intan leeg waxaad moodaa inuu iska caajiso ama is idhaahdo dee adigu xujadii ku ogtay waa kuwa kaa dhaga adayga iyagay xilkoodatay laakiin waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya nebi nuux in aanu intaa ku joogin inuu asaaliibtana u gagadiyey wakhtigoo dhan ma ku isticmaalay haddana wuxuu is yidhi malaa usluubkan hadduu socon waayey dis way hadday kugu geli weyday other way tilmaam ama ariiq kale eeg qaab kaloo aad dadka diinta ugu sheegto ثuma inii dacawtuhum jihaara ثuma inii aclantu lahum waasrartu lahum israara nebi nuux wuxuu leeya ilaahayow kor baan ugu yeedhay oo hoos baan ugu yeedhay waa la faqay waa la shiray waa u sheegay kor baan calan ugu sheegay si wal oo la sameeyaba asaaliib kasta oo wax loogu yeedhi karo waan isticmaalay waxaana qur-aanku inoo tilmaamayaa inuu yeedhayay 1000 caamin ilaa 50 sana 1000 sannadood oo laga jaro 950 sannadood inuu dacwadaasi waday qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi nuux markaa barnaamijkiisa dacwad habeen iyo maalinba inuu ahaa usluubku isticmaalayana inay ahayd wax kastoo possible waxaa qur-aanku kaloo ka warramay maalan ambiyadu inaanay fursadnaba dacwadooda dhaafaynin aanu qofku ahayn markaan anigu jaaniska leeyahay ama markaan wakhtiga fiican haysto ama markaan badhaadhaysanayo ama markaan caynkan ahay baan diinta sheegaya ma aha waxaa qur-aanku ka warramaya nebiyo qariib oo tolkood ka fog maxaabiisoo xabsi ku jira la dulmiyey oo dulmi ku xidhan oo haddana jaanis hadduu helo xabsigii uu ku noolaa u beddelay madraso ama meel diin lagu faafiiyo dacwadeed waa nebi maxbuus ah laakiin aanis o dhan adigu xabsi baad ku jirta ama maxbuus baad tahay ama xaggaad wax ka sheegi ee isku daya isagoo xabsi ku jira jaaniska uu helo inuu ka faa'iidaysto ilaahay nebi yuusuf uu ka warramaya waxaa la yidhi wadakhala macahu sijna fatayaan laba wiil baa la galay xabsiga oo waxay ku yidhaahdeen qaala axaduhumaa inii araanii acsuru khamra midba wuxuu yidhi anigu waxaan is arkay yacni waxaan ku riyooday anigoo ama se tuujinaya khamri anigoo casirayo oo cinab ka tuujinayo samaynayaan ku riyooday kii kalena wuxuu yidhi waqaala alaakharu inii araanii axmilu fawqa ra'si khubsa anna waxaan ku riyooday oo arkay anigoo dushayda kimis ama roodhi ama laxoox waxaad doontaba dhaho anigoo raashinkaa sida oo ta'kulu tayr oo ay shimbiruhu ka dul cunayaan baan ku riyooday ee nabi'na bitawiilih inaa naraaka min almuxsiniin bal nooga waran fasirkeeda noo sheeg waxaanu kaloo ku arkaynaa inaad nin ixsaan badan tahay daacigu walow kaafirna ha noqdee waa nin muxsin oo cidda dad kasta u samafala waayo waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo maxaabiistu samafalay waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo boqorkii soo xidhay intuu riyooday cid riyada u fasirta waaye aan odhanin waa nagala tagolado adiga xabsiga nugu cid ku fasirta doondoone isagoo xabsiga ku jira inta la daba socdo laleeyahay noo fasir riyada tan boqorkii baa u baahane oo u arkaya inuu bulsho badbaadiyo oo muxuu ku badbaadinayaa brogram iqtisaadiya inuu dego khito iqtisaadiyo 15 sannadood ee soo socda 7 sannadood oo abaari inay ku dhex jiraan bulshadii iyo waddankaasi siday uga badbaadi lahaayeen abaarta waa bulshiyo waddan ayaa waa bulshiyo waddan gaalo ah ma aha dad muslimiina khitadan umu degayn dad gaaleed buu badbaadinayay waxay tilmaamaysaa ninka daacigii inuu muxsin yahay walidaalik ayaa waxay dhaheen nebi yuusufo waxaanu arkaynaa inaad nin muxsin oo ixsaan badan tahay ee noo sheeg fursaddaasu ka faa'iidaystay muu bilaabin inuu fasirkii sheego ee wuxuu bilaabay kow horta inuu xasiliyo qalbigooda xasiliyo ah halkii fasirka aad ka helaysaan waa joogtaan horta maydan khaldamine meeshii wax laydinku sheegi lahaa waa timaadeen qaala laa ya'tikumaa طacaam turzaqaani ilaa naba'tukumaa bitawiilihi qabla an yaأtiyakumaa dalikumaa mima callamanii rabbi inii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna biاllah wahum biاlaakhirati hum kaafiruun waa
raashin idiinma imanaya laydinku arsaaqaya buu leeya ilaa iyo ta'wiilkiisa waan idiin sheegaya intaanu idiin imanin arrimahanina waa arrimihii rabbiga i baray aniguna waxaan ka imi buu leeyay duul aan alla rumaynaynin aakhirana ka gaaloobaya waan ka tegay kuwaa diintooda buu leeyay wuxuu bilaabay markaa dacwa fursadda aynu ka faa'iidaysto waattabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba wuxuu leeyahy anigu waxaan ka tirsanay qoys ilaahay diintiisan oo waxaan ku abtirsadaa nebiyo yacquub isxaaq ibraahim ma kaana lanaa nacbud ma noo cuntata buu leeyahay an nushrika billahi shay inaanu ilaahay cidnaba ugu shariig yeelo dad mu'miniin oo caynkaasaanu nahay inkastoo dadka inta badani ka gaalowday warkaa markuu waday ayuu haddana wuxuu bilaabay inuu iyaga la hadlo yaa saaxiibaya sijin war labadan xabsiga u saaxiibka ah ow idhegaysta buu leeyahy aarbaabun mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar am illaah alwaaxid alqahaar war ma rabbiyada tirada badan baa fiican miseyna caabudaan ilaaha keligaa dacwadiisii buu bilaabay iyagu riyay fasirkeeda doonayeen wuu u sheegay riyada inuu fasirkeedii hayo laakiin jaaniskaa yar buu ka faa'iidaysanayaa ah inuu messajkiisa isna dhiibto dacwadiisa inuu dhiibto oo uu leeyahay markaasi anigu war ma rabbiyo badan baa fiican in la caabudo mise ilaahay keligii ma tacbuduuna min duunihi illa asmaa'an samaytumuuha antum waabaa'ukum ma antum biha min sulطaan wuxuu bilaabay inuu tilmaamo tafniido naqdiyo criticize gareeyo aalihadan ay caabudayaan iyo waxaan ay haystaan iyo waxaan inay wax xaqa ahayn ma waxaa caabudaysaan buu leeyahy wax kale ma caabudaysaan ilaa iyo magacyo una idinku intaa bixiseen ilaahya ka dhigteen oo aan ilaah ahayn waxaan sulطaan lahayn wuxuu bilaabay inuu sharxo tawxiidka in alxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika addiinu alqayim walakina aktar annaasi laa yaclamuun markuu muxaadaro dhan oo 3 aayadood oo qur-aan ilaahay inoogu tilmaamayo oo tawxiidka ka warramaysa oo meeshii uu u bedelayba madraso tawxiidka lagu sharxo ayuu wuxuu bilaabay intaa kadib inuu warkoodii siiyo oo ah yaa saaxibaya sijn ama axadukumaa fayasqii rabbahu khamra wa ama alaakharu fayuslab markaasuu u bilaabay inuu fasiro maxaan daliilka maxalu shaahidkaynuu socna waa maxay waxa weeyaan qof daaciga ah inaanu wakti gaara ahayn ee wadiifat alcumri inay dacwadu tahay qofka muslimkii any chance uu helo wakti kasta uu fursad helo in laga rabo inuu daaci noqdo diintiisa dadka gaadhsiiyo xataa hadduu maxbuus yahay oo uu qurbo ku nool yahay oo uu qariib yahay oo la xabsiyo oo la dulmiyo oo la cadaadiyo waxaasoo dhiba uu ku jiro haddana qofka mu'minkii inuu weli haysto saaxa uu diintiisa dadka ka gaadhsiin karo qofkii xorta ahaa markaa maxaad u malaynaysa ama waktiga haystay ama bulshada la kulmayey bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa wadiifat alcumri sida ay u tahay nebiyuu inooga warramayaa aakhiru laxda markay nolosha ka baxayeen bay ka dhammaanaysay dacwo faafinayay ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nebi yacquub am kuntum shuhadaءa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi acbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik ibraahiima waxay leeyihiin yani nebi yacquub baa ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala miyaa xaadirteen oo joogteen ma markhaato ahaydeen waa soo xaadirteen markii nebi yacquub geeridu ay ku soo ururtay id xadara yacquuba almowt geeridu markay u timid nebi yacquub iyadoo geeridu haysato wuu dardaarmayaa laakiin muxuu ka dardaarmayaa dacwa iyo diin buu ka dardaarmaya xoolaha aabbayaal markaan dhinto saydun odhanayo reeraha saydun loola dhaqmayo halkee reerka la waxaa kama dardaarmayo wuxuu ka dardaarmayaa maa tacbuduuna min bacdi waar aniga gadaashay maxaydin caabudi halkaa diintii dhigi doontaan dabeetana waxay leeyihiin markaasi nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun aabba waxaanu caabudi doonaa alle subxaana wa tacaala allihii waa caabudi jireen aabbayaasha ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq wax kaloo aanu samaynaynaana ma jirtee isagaanu muslimiin u ahaanayna idan waa aakhiru laxda fii xayaatih ayuu nebiga kani wuxuu tijaabinayaa inuu mas-uuliyaddii dareemo ahayd in dacwada tani mas-uuliya ka saaranta inuu dadka gaadhsiiyo uu xaqiijiyo
ilmihiisu waxay samayn doonaan isaga geeridiisa dabadeed. idan waxaa laynoo tilmaamay nebi habeen iyo maalinba dacwo wada, asluub kasta ama qaab kasta oo wax loogu yeedhana ku yeedhaya, 950 sannadoodna waday. waxaa laynoo tilmaamay nebi xabsi ku jira oo qurbo ku nool, waddankiisii waddan aan hayn jooga, oo la dulmiyey, oo lawcatlgurba iyo xabsi iyo dulmi iyo waxaasoo dhibi haystaan, oo haddana jaanis yar markuu helo dacwadiisii wata oo tawxiidka dadka ugu yeedhaya. waxaa laynoo tilmaamaya nebi naftu ka sii baxayso oo damaya oo ka dardaarmaya dacwo iyo diintii waxa laga yeelayo. waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala inoo soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo noloshiisa oo dhami dacwad ahayd, oo isna xataa markay naftu ka sii baxaysay 5 maalmood ee ugu dambaysay, imise xadiis baa laga soo wariya, isagoo jiifa oo sakaraada oo xanuunsanaya oo xumadoonaya oo le ilaahay rasuulkiisiiyo xumaddu xoog bay ku haysaa laleeyahy, uu leeyahay 2 idinka midi siday u xumadoonaysaa baan u xumadoonaya, oo laleeyahay waa ajarka badan aad heli doonto sidaa u xumadoonaya, ayaa haddana wuxuu ka warramayay war xabaashayda ha ka dhiganina meel a ku cibaadaysta ama ciid ha ka dhiganina. wuxuu ka warramayay ahlu kitaabku ambiyadood iyo xabaalihii iyo wixii bay ka dhigeen meelaha ilaahay khayrkii lagu caabuday inaan lagu caabudin ama la dhisin, ama wuxuu ka warramayay fii aakhiri laxdaat baa la yidhaha nebigu maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu dambeeyey markuu geeriyoonayay, intuu iska fayday marada yuu eegay saxaabadiisiiyo tukanaysa oo abibakar tukinayo salaada ku jira. aakhir kalimaad uu kusii warramayay waxaa isagoo dardaarmayoo leh asalaah asalaa wamaa malakat aymaanukum, isagoo dardaarmayoo leh allah allah asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum. dadka ugu yeedhaya alle subxaanah wa tacaala, ugu yeedhaya inay salaada ilaaliyaan, ugu yeedhaya inay xaqa dhowraan dadka addoomaha iyo wixii gacantooda ku jira. qur-aankaa baa inooga warramaya in ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala mas-uuliyadan siduu u dareemayo uu ugu warwarayo ilaahay uu kula talinayo inaanu naftiisa halaagin. falacalaka baaqicu nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa. ilaahay baa subxaana wa tacaala looga qalbi qaboojinaya inaanu naftiisa ku halaagin warwar uu warwaraya diintan daraaddeed. sigoos ka kooban waxaan kusoo koobayaa ikhwatii fi lcaqiida, mas-uuliyadda diintan in dadka loogu yeedho waxay saaran tahay qof kasta oo muslima. qof kastana waxay u saaran tahay calaa xasabi taaqatihi wa qudratih. qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa cid adiga kaa taag daran oo laakiin mas-uuliyadatan xambaartay. ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa shimbiraha ka mid oo mas-uuliyadan xambaaray inuu dacwada diinta gaadhsiiyo o u xidhxidhan. qur-aanku wuxuu ka warramayaa shimbir yaroo la ydhaha maxay hudhud, soomaaliga waxa la ydhaha guuguule. shimbirkan yare guuguula la ydhaha dhoorka yar leh ee meelahaasi jooga, guuguule ayaa qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa intuu safray oo duulay inuu carriga ilaahay soo indheeyey oo dabeetana soo arkay duul dawlada oo boqortooyo leh oo wax walba haysta oo nicmaysan oon haddana ilaahay caabudaynin oo ilaahay khayrkii u sujuudaya, dabeetana u safray inuu nebi u tago uga warramo duulkan iyo waxa ay samaynayaan si uu nebigu dacwadda u gaadhsiiyo. waa shimbir laakiin xambaaraya mas-uuliyadda ah inuu diinta tan u adeego. ilaahi subxaanah wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu kaga warramaya shimbirkaasoo warkii intuu soo ururiyey uu nebiyullaahi sulaymaan ciidankiisii intuu ururiyey uu waayayo uu hanjabayo oo dabeetana uu yidhi waa ciqaabaya haddaanu war saxa keenin ama wax keenin, oo intuu soo noqday nebiga hortaagan oo le axatu bimaa lam tuxit bihi cilma, waxaanad koobin baan koobay. axatu bimaa lam tuxit bihi, war aanad soo koobin baan soo koobay buu leeyay. war khabar baan hayaa. khabarku hayaa waa maxay? waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. saba baan ka imi buu yidhi, dhulka yaman la yidhaahdo ayaan ka soo duulay. waa falastiin buu ka duulay, yamanna wuu tegey, waxna waa indhaindhaynayey. yaman baan ka soo duulay buu leeyihi. yamanna waxaan uga soo duulay waa maxay? waxaan ku soo arkay inii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay walaha carshun cadiim. waxaan soo arkay buu yidhi gabadh dadkaba boqorada oo hanata oo wax walbale la siiyo nicmaysan.
inuu gabadh boqorada soo arko wax haysata ma hiya almushkila maxay tahay dhibta ka jirta waa tan wajadtuha wa qawmuha yasjuduuna lishamsi min duuni illah وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون waxaan soo helay buu leeyahay duulkaasi waxaan ku soo ogaaday iyadii qoomkeedaba oo cadceedda u sujuudaya ilaahay sukadii subxaana wa tacaala oo shaydaan waxa u qurqurxiyo aan duul hanuunsan ahayn dabeetana khitaab istinkaariya iyo arrintaas siduu u diidan yahay buu nebi sulaymaan u sheegaya laa yasjuduu lilahi aladii yukhriju alkhab'a fi الsamaawaati wاlard idan hadduu dareemay hudhud guuguule hadduu dareemay in xil saaran yahay hadduu mushrikiin soo arko iyo cid aan ilaahay kayrkii caabudaysa inuu kuwa wax u sheegi kara uu u tago u yidhahdo kaalaya kuwan waxa loo sheegay xilkaasuu dareemay hudhudku in xil saaran yahay oo uu ka saaran yahay kuwan ilaahay kayrkii caabudaya inuu ka saaran yahay inuu dadka kan tawxiidka gaadhsiiyo inuu calal aqal dowrkiisa guto inuu u tago ciddii gaadhsiin lahayd dadka kan tawxiidka ma adigoo ilaahay waxaanu xoog iyo caqli iyo awood iyo raganimo ku siiyo bini aadamka ha dhigay baan dawr ku lahayn inaad diin dad gaadhsiiso shimbir baa dawr lehe adugu xaggaad joogtaa idan waa mas-uuliya cid walba baynu leenahay waa mas-uuliya qof kastaba looga baahanya inuu qaado qur-aanku baraya magaalo yaroo 3 rasuul loo soo diray oo haddana nin kale isna xilkaa isa saaro qaaday waa meel 3 rasuul joogto maaha meel maran qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya subxaana wa tacaala wadrib lahum mathalan asxaaba alqarya id jaa'aha almursaluun id arsalnaa ilayhim 2 fakadabuuhuma facazazna bithalith faqaaluu inaa ilaykum mursaluun ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala dadka waxaad u sheegtaa u caddeed tusaalaha kan qoladii magaalada deganayd ee rususha ay u timi baa ilaahay yidhi id arsalnaa ilayhim 2 waxaad u sheegtaa baa la leeyay subxaana wa tacaala markaan usoo diray 2 culamada badh waxay ku fasiraan inuu nebi ciise uu soo diray laakiin maadaama ay ciise ka socdaan in lagu cabirayo inay yihiin ciisena dee ilahay buu ku socdaa ay warkaysidaan warkii alla un inuu yahay haddii daahirkeeda wax diidayaa ma jiraan calaa kulli xaal hadduu ciise soo dirayna waa cid muhimadan qaadi kartoo loogu talagalay inay qaado 2 la soo diro markaasaa la beeniyey mid 3aad baa laga daba keenay haddana facazaznaahum bithalith 3 rasuul magaalo ay joogto oo dadkiina dhagaa furaysteen oo layshayaa ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa magaalada halka ugu fog nin baa ka yimi degdegaya baa la yidhi ninka kan isaga rasuul iyo sifaadkaa laba siinay qoladii hore rasuul bay ahayd ama min ha ka yimaadaa nebi ciise ama allaba ha soo diro rasuul bay ahaayeen amaa kan waxaa la yidhi wajaa'a min aqsa almadiinati rajul waa nin la nakireeyey magaalada halka ugu fog nin baa ka yimi baa la yidhi oo degdegsan ninkan degdegayaa muxuu wadaa waxa uu wadaa yaa qawmi ittabicuu lmursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun waar tolkayow buu leeyay raaca rususha laydin soo diray waa raaca kuwa hanuunsan waan wax adduunana idinka doonaynin qofku hadduu labadaas sifaba wada wato inaanu hanuunsan yahay isagu marka hore mar labaadna si wax brivatekiisa ama wax shaksiya ama waxuu isagu doonaya aanay jirin oo uu kaa helayaaba ee ilaahay dartii unuu kuugu yeedhayo dacwadu ilaahay dartii markay tahay bay wax dadka gala tahay walidalik baa rasuul kasta ilaahay wuxuu lahaa iclaanka qaado sloganka ma asalukum calayhi min ajri baa nebi walba la yidhi waxaad ku tidhaha dadka waa anigu waxba idinkama rabo waayo hadday dadku is idhahdaan qofkan danbaa ugu jirta waxaa laga yaabaa inay tuhmaad badan keenaan lakiin haddaad danba ka lahayn dadka kan waxay arkayaan waxaad naseexa inay tahy ini lakum naasixun amiin haddaad tahay idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala ninka kani isma odhanin war meesha 3 rasuul baa jooga adiga shaqadaad ku leeday waa maxay tuulada 3 rasuul baa taagan meel 3 rasuul joogto adiga waa maxay shaqada lagaa rabaa muu odhanin ilaahay wuxuu tilmaamayaa isagoo 3 rasuul joogaan inuu isna shaqada dhinaciisa ka wada uu leeyahay war hala raaco rusushatan hala raaco
rusushatan macnaheedu waxay tilmaamaysaa marka ayuha alikhwa qof kasta oo muslima inuu saaran yahay xil ah inuu diinta dadka gaadhsiiyo inuu saaran yahay xil ah islaamnimada inuu mas-uul ka yahay inuu saaran yahay xil ah inuu dareemo inuu safiir yahay matalaya rasuulkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dareemo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadiisa kula balliquu canii walow aaya inuu tilmaamayay ruba muballagin awca min saamic la arkee in mid la gaadhsiiyey uu ka weelayn bato kii wax maqlayba waxaa laga yaabaa mid aad adigu unu yeedho tidhi war laa ilaha illa allah iska dho ashaado caynkana in ilahay dadkaba ku anfaco isagu daaciga kama dambaystaa uu noqdo waxuu yeedho dhana jirkooda insha allah adna waad leedahay laakiin adiga ilaahay wuxuu ku haleeshiiyey inaad isagun tawxiidka u laqinto oo diinta soo geliso idan qofka muslimka ah hadday dadka muslimiinta ahay maanta bilyuun iyo badhka ama 2 bilyuun ee dhadhowe dunidan kor saarane hadday mas-uuliyadaa dareemi lahaayeen caalamka intaynu kaga soo hoyan lahayn inuu islaamo mas-uuliyadaa jiilu saxaaba ay dareensanaayeenee ah intay islaamaan maanta inay noqonayeen iyagoo ducaada oo tolkood 1 iyo 2 iyo 3 baan idin tilmaamay laakiin saxaabada haddaynu ka waranno markuu xataa nebigu madiine tegey saxaabadii hore madiina timiyo dacwadda say u faafiyeen haddaan ka waranno sacd ibnu cubaada markuu isla reer bani cabdillashaal muxuu ku lahaa wax dababa cuni maayo haddaydan islaamin tolkii oo dhammaantuu soo islaamay tolkii oo dhanna wuxuu ka rabaa inay islaamaan haddaynu ka waranno taariikhi saxaaba iyo nin waliba markuu islaamnimada soo galay iyo hamiga kan siduu u xambaaray ama u qaaday dadka kan hamigaa inay diinta dadka gaadhsiiyaan baa ku weynaa abibakar intuu islaamay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qof u yeedhay ugu yeedhay dadka uga hor yeedhay oo diinta u sheegay oo islaamay ayuu noqday 10 almubashiriin 6 ka mida isagaa keenaa la yidhahda aakhiro fii wasni abibakar bay ku biirayaan cabdiraxmaan ibnu cawf cuثmaan ibnu cafaan zubayr ibnu alcawaam طalxa abu cubayda ibnu yani 6 nin oo ka mida baa la yidhaha 10 almubashiriin abibakar baa keenay waa qofku hadduu mas-uuliyadda dareemo goormuu keenayaa shalaa diinta loo sheegay qur-aanba wax yar baa ka soo dego makaa la joogaa waa maalmihii ugu horraysay laakiin bimujarad inuu wax fahmay ayuu qaaday dacwadatan qofku bimujarad inuu ashahaato laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah yidhaahdo ayaa xilkani ku fuulaya wuxuu u baahan yahay markaa qof kasta oo muslima inaad xilkan qaado qofna inaanu isyaraysanin nacam laa yukalifu allahu nafsa ilaa wuscaha nacam laa yukalifu allahu nafsa ilaa maa aataaha waa dhab qof walba inta saaran inta awood la siiyey inay saaran tahay waa dhab culammada xil dheeraada inuu sii saaran yahay dadka ahlu cilmiga ah ee nebi maxamed dhaxlay calayhi salaam in xil dheeraadii sii saaran yaho ah dadka inay diinta u sharxaan oo fahamsiiyaan in xil dheeraadii sii saaran yaho ah cilmiga inay dadka baraan in xil dheeraadii sii saaran yaho ah inay dadka u fatwadaan in xil dheeraadii saaran yahay waa dhab laakiin kaa macnaheedu maaha in dadka caamada ee muslimiinta ee badan xilku ka dhacay qof wal oo muslimaba xil baa saaran inuu cidda kale diinta gaadhsiiyo xil baa kaa saaran intaad garanayso inaanad aqoon lagaama rabo inaad ka soo jawaabto waxaa lagaa rabaa tawxiidka inaad dadka ugu yeedho waxaa lagaa rabaa dadku inay aakhira jirto inaad ugu yeedho waxaa lagaa rabaa dadku inay janno iyo naar jirto inaad u sheegto waxaa lagaa rabaa dadku inay ilaahay rusushiisa raacaan inaad ugu yeedho waxaa lagaa rabaa baysigskii islaamiga ahaa dacwada islaamigii sal bay leedahay qof kastoo muslimina uu yaqaano inaynu taa dadka ugu wada yeedhno mas-uuliyadda haddaynu xambaarno waxaan is leeyahay wax waliba way fududaan doonaan lidalik kelimada waxaan kusoo koobayaa markaasi waa mas-uuliyo ku xidhan inaynu ashahaadanay mar haddaynu ashahaadanayna aakhiro waa layna weydiinayaa imaa lanaa inay noqoto ama calaynaa inay noqoto ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala kuwa xambaare siday tahay u xambaara inay naga yeelo
inuu kuwa haadiyiin mahdiye kuwa yara hanuunsan gacantoodana ilaahay dadka ku hanuuniyo inuu inaga yeelo inoona fudaydiyo xilka qaadistiisii wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu